السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا وضع السلامي بلاد شوكتان با عشر كان وحنو كبرانينا dictionary وحو يهي بايثون و data type آد مهم واه marka dictionary marka hore waa collection waa sidii listig oo kale iyo setkii iyo tuplekii lex wuxuu kaga duwan yahay wuxuu isticmaalaa key value pairs waxa la dhaho marka wuxuu leeyahay key iyo value ayuu leeyahay waa unordered changeable waad bedeli kartaa unindexed by keys marka index markaad isticmaalayso keyska ayaa la isticmaalayaa marka sidii adoo kale dictionary wax ka baadhay oo kale ereygii aad baadhaysay iyo micnihiisii marka ereyga aad baadhaysay wuxuu noqonayaa keygii micnihiina wuxuu noqonayaa markaa valuegii marka dictionarieska marka la qorayo waxaa lagu qoraa curly bracekaasaa la isticmaalaa so dictionaries are written with curly braces and have keys and values marka keys iyo valueska waxa u dhaxeeyo columnka labada calaamad dhibcood ayaa u dhaxeeya marka mutable horeynu soo aragnay waa changeable you can change add or remove items from creation after creation markaad samaysa kadib waxaad ka bedeli kartaa unordered items don't have a defined order waa before Python 3.7 unordered buu ahaa laakiin iminka waa ordered no duplicates marka the keys must be unique keys kuma lama ogoleynay duplicate ahaadaan laakiinse valueska duplicate ood ka dhigi kartaa keys must be immutable keyskuna waa inay ahaadaan data type aan la bedeli karin marka sida strings numbers iyo tuples laakiinse matalan keyska list kama dhigi kartid keyska imikana waxaan arkaynaa tusaalooyin ku saabsan dictionaryga marka dictionaryga dhowr hab ayaa loo samayn karaa ka ugu horeeya waxa weeyaan hadaynu dhahno iminka u bixino my dict is equal to curly brace keliya marka hadda empty dictionary ayaan samaynay kabacdi waxaan ku dari karaa marka my dict keyga ugu horeeya waxaan odhanayaa matalan name valuegiina wuxuu la mid yahay Ahmed marka haddaan dhahno print dict waxaan haysanaa dictionary ka kooban hal item oo ah keygii name ah iyo valuegii Ahmed ah haddaan rabaa inaan mid kale kusii daro waxaan odhan karaa my dict age 20 haddaan hadda mar kale print dhahno waxaan haysanaa dictionary hab kale aan samayn karna waxa weeyaan isagana intaan qaybta oo dhan iska saarno curly bracekina markaan dhex gelino waxaan odhanaynaa name colon namekaas waa keygii colon kabacdi Ahmed comma second item haddaanu marka ku daraynaa keyga oo ah age 20 print markaan dhahno marka isla dictionaryga ayuu noo sameeyey habka kalena waxa weeyaan marka inagoo isticmaalno wax la dhaho dict waxaan odhanaynaa dict name waxaan odhan karnaa Ahmed comma age ka sidaasna waynan ku samaysan karnaa inta badan kii dhexe ayaa la isticmaalaa oo ah matalan waxaan u bixinaynaa person Ahmed habkana ugu fudud oo loo isticmaalaa inta badan hadday rabno marka inaan hadda print garayno magaca waxaanu isticmaalaynaa keyga waxaan leenahay print person keygii marka hadaynu dhahno name waxaa print garaynayaa namekii Ahmed hadaynu soo koobiyeyna kanoon agekana print garayno agekii noo print garayay marka namekii iyo agekii hadday rabno inaan item kale ku darno waxaan odhan karnaa person matalan city is equal to London dictionary haddaan marka print garayno marka wuxuu ka kooban yahay saddexda item
saan hor soo sheegnay dictionary-gu value-gu waynu bedeli karnaa marka haddaynu rabno inaynu age-ki ka dhigno age-kan haddaan rabno inaan gelin waxaan rabnaa person age-ka wuxuu la mid yahay 25 haddaynu dhahno marka waynu bedelnay age-ki dictionary waxaan aragnaa marka age-ku isbedelay wuxuu noqday 25 haddaan rabno inta item ku jira dictionary inaan eegno waxaan rabnaynaa print len oo u taagan length person 3 items ay noogu jira dictionary marka saan hor sheegnay key iyo value markay wataan waa hal item markaan rabno marka inaan items soo qaadano waxaan baranay inaan oran karno print person name oo kale marka wuxuu inoo soo print garaynaya name dhibaatada waxa weeyaan haddaad print garays dhahdo key aan ku jirin meesha haddaynu dhahno matalan city error ayaa inoo soo baxaya key error wax la dhaho wuxuu leeyahay markaa keyganaad rabta inaad print garayso ma jiro waxaa ka safesan ama ka fiican marka in la isticmaalo wax la dhaho get marka waxaan oranaynaa person.get haddaynu dhahno name iminka uu inoo print garaynaya namekii ka axmed laakiinse haddaynu print garays dhahno item aan ku jirin meesha sida city error inoo soo baxay none kale ayuu print garaynaya markaan oran karnaa hadhowto if condition aan ku eegi karnaa tan waxay noo fududaynaysaa marka inaanu error programkii ku dhicin oo aanu crash garoobin marka get ayaa ka safesan labadooda marka la isticmaalayo laba arrimood oo kale muhiim inaan fahanno dictionary-ga markaad samaynayso hadduu dictionary dheer yahay waxaa fiican inaad sidan oo kale aad u qorto curly brace-ka ka bacdi enter key value key value key value kaas waa number 1 number 2 waan rabaa inaan idiin sharaxo waxweeyaan list waad dhex gelin kartaa value halkan waxaan ku aragnaa markaa courseska list inuu yahay marka haddaynu rabno inaan course-ki print garayno waxaan rabnaa print student courses isagoo list ay inoo print garaynaya course haddaan rabo inaan course ugu horreeya print gareeyo waanaynu dhahnaa print course ka bacdi indexkii waan isticmaalnaa waan dhahnaa index 0 for example marka course ugu horreeya inoo print garaynaya calculuski haddaynu doonaan waxaan isticmaali karnaa for loop waxaan karnaa for course in student.courses marka waxaan soo qaadanaynaa listigii print courses ma aha waa course waa variable aanu inagu hadda samaysanay run haddaynu dhahno markaa courseda ayuu mid inoogu soo qaadaya marka waxaynu aragnaa halkan inaad dictionary-ga aad nested ka dhigi karto od gelin karto list uu value-gu list uu ahaan karo ayaan halkan ka aragnay halkan waxaan ku baranaynaa haddaynu haysano laba dictionary oo rabno marka labada inaan isku darno studentigii ayaan rabnaa inaan informationka dheeraadka kusoo darno waxaan isticmaalaynaa functionka update marka update extra info markaynu dhahno dictionary-gii studentiga ayaan macluumaadkii ku jiray halkan kusii daraynaa haddaynu dhahno print student waxaan arkaynaa markaa inaynu ku darnay majorkii computer science iyo city london marka laba dictionary dad rabta inaad isku darto waxaad isticmaalaysaa updatekaas ayaad isticmaalaysaa iminkan waxaan baranaynaa sidaan itemska uga tuuri lahayn ama u delete garayn lahayn items ku jira dictionary-ga laba mid waxaan isticmaali karnaa 3 way del haddaynu dhahno kabacdi student iyo keygii city haddaynu hadda delete garayno haddaynu markaa print dhahno city ayaynu meesha ka tuurnay delkaas waa yara unsafe waayo haddii aad ilowdo keygii hadhowtu wuxuu delete garaynayaa dictionary-gii oo dhan ayuu delete garaynaya haddaad print isdhahdo error ayaa soo baxay marka delka in layska ilaaliyaa fiican inta badan
ماشي دالك waxaa la isticmaali karaa markaa pop waxaan karnaa markaa student dot pop kiigii markaa u sheegaynaa city halkaas citygaanu dilgaraynay pop wuxuu kaloo ku fiican yahay wuxuu ku haynayaa value aad delete garaysay marka haddaynu dhahno deleted item marka waxaanu print garayn karnaa itemkii aan delete garayna waxaan oran karnaa print deleted item marka haddaynu run dhahno wuxuu inoo sheegayaa inuu delete gareeyay London dictionarygiina anaga ka tuurnay city item anaga ka tuurnay marka pop waanu delete garaynayaa itemkii uu delete gareeyay valuegiisina wuu kuu soo celinayaa markaa variable ayaad intaad ku assign garayso ayaad markaa check garayn kartaa ama printer garayn kartaa waxaa jeesina pop item mid la dhaho pop item wuxuu delete garaynayaa itemka ugu dambeeya marka halkeena city ayaa ugu dambeeya hadaynu dhahno student dot pop itemka ugu dambeeya u delete garaynayaa mar labaad haddaynu dhahno haddana pop item waxaa ugu marka cityga laga delete garay ka bacdi waxaa ugu dambeeya haddana majorka marka hore city ayuu delete garay ka bacdi haddana majorka ayuu delete garay pop item marka mar walba wuxuu delete garaynaya itemka ugu dambeeya haddaynu rabno in dictionarygo dhan clear ku samayno oo ayna delete garayn laakiinse items ku jiro dhan aynu ka saarno waxaan isticmaalaynaa markaa clear waxaan oranaynaa student dot marka waxaa inoo soo hadhaya empty dictionary madhan ayaa inoo soo hadhaya marka uu ka duwan yahay delete daynu dhahno variableka o dhan waynu delete garaynay isagu markaa error ayaa noo soo baxay daan isdhahno printer garee waayo memory o dhan waynu ka saarno delete baynu nidhi marka farqa u dhexeeya clear iyo delete waa sidaas haddii aynu rabno in marka item ama keyga uu ku jiro dictionaryga waxaan isticmaali karnaa inkian hore usoo dhiganay haddaan dhahno madkan iminka print name in student true buu noqonaya waayo key nameka uu inoogu jiraa true haddaynu dhahno laakiin not in kuma jira miyaa false buu noqonaya marka in iyo not in ayaa la isticmaalayaa haddaan dhahano midaan ku jirin haddaan eegno kale matalan price oo kale haddaan raadino price kuma jiro iminka dictionaryga false ayaa inoo soo baxay marka if statementka hore usoo dhigan ayaanu isticmaali karna waxaan oran karnaa if name in student if name is in student ka bacdi print name value printer garee marka axmed ayaan oranaynaa marka not in haddaynu dhahno iminka print garee maayo way false ayuu noqonaya okay qaybta kale intaynaa for loopka baran waxaa muhiima inaynu baranno inaan print keyska inaan print garayn karno waxaan oran karnaa print student dot keys marka keyskii keliya marka kana waa function marka inaan parents ku xidhnaa keyskii keliya hadda print garaynay haddaan ran dhahno wuxuu inoo print garaynayaa name age major city keys keliya haddaynu dhahno like valueska inoo print garaynaya axmed 20 computer science haddii aynu rabno marka inaan keygii iyo valuegii labadoodaba printer garayno waxaan isticmaalaynaa dot items marka wuxuu inoo print garaynayaa keygii iyo valuegii oo tuple ah waad aragtaan halkaas waa name axmed another tuple age 20 marka qaybtan oo dhan for loopka ayaanu u isticmaali doonaa oo aynu baranaynaa hadda okay for loopka nimka baranaynaa haddaan dhahno for item in student print item waxaan arkaynaa keys kilo hadda inoo soo qaadaya
name age major waxay la mid tahay inagoo nidhi markaa student dot waa isku mid name age haddaynu laakiinse dhahno valueska inoo soo qaadaya marka haddii aynu markaa rabno inaan isticmaalno printer garayno keygii valuegii waxaanu isticmaali karnaa halkan haddaan key khasab maaha laakiinse key baan isuga bixinaynaa maadaama keyskii aan soo qaadanayno ama key baad odhan kartaa kan keygiska ayuunu siinayaa waxaan odhan karnaa markaa inagoo isticmaalayna f formattingkii waxaad print garaysaa keygii value haddana markaan soo qaadanayno dhahnaa student keyga markaan isticmaalayno in dhahnaa key wuxuu noo soo qaadayaa keyga markuu soo qaado name oo kale halkan name ayuu print garaynayaa halkanna valuegi name ii soo qaadadoo yidhi oo la mid tahay axmed ayuu markaa soo qaadaya hadaynu one by one u print garayno name axmed age 20 major computer science waxaa laakiinse ka fudud inaynu isticmaalno dot itemski marka waxaan odhan karnaa key waxaan ognahay dot itemski inuu noo soo celinayo keygii valuegii marka waxaan odhanaynaa key value halkan dot itemska waxayna siinayaa si aan u aragnay tuple ka kooban keygii valuegii unpacking ayaan ku samaynaynaa keygii waxaynu ku assign garaynaynaa key valuegana value halka marka key meesha halkan aan ka qaadan lahayn ka odhan lahayn ka isticmaalayna meesha ka isticmaalayna dictionaryga magaciisa waxaynu odhan karnaa value habkanaa ka fudud markaa wuxuu noo soo qaadayaa namekii iyo keygii marka key value khasab ma inaad u bixiso meelaha qaar waxaad korsaa k iyo v k waa variable names adigu aad samaysanayso haddaad doontana x iyo y waad ka dhigi kartaa khasab ma inaad inta badan laakiinse key ama k v ama value ayaa loo isticmaalaa laakiinse haddaad x iyo y u shaqaynaya saan hore usoo sheegnay waa variables adigu aad magaca doonto siinayso haddii aynu rabno inaan print garayno Ahmed is 20 years old and lives in London for example waxaa fudud inaan isticmaalno formattingkii marka waxaan soo qaadanaynaa keygii student namekii marka halka waxaan soo qaadan Ahmed is agekii haddana inaan soo qaadanay noqonaysaa student ka halkaas inaan ku xidhnay ahayd kan kale inaan ka tuurno so Ahmed is 20 age waxaan soo qaadanay years old and lives in student kabacdi city saasaad u format garaynaysaa markaad hadhuto rabta inaad format garayso taynu dhahno run Ahmed is 20 years old and lives astaynu ka tagnay and lives in London marka habkaasaad u format garaynaysaa hadda waxaan baranaynaa inaad dictionary list dhexgelin karto iyo inaad dictionary kale dhexgelin karto waxaa la dhahaa nested dictionary labadaasaan baranaynaa halkan waxaan ku haysanaa dictionarygaas oo ka kooban key iyo valuegu marka waa list san hore soo aragnay marka haddaan rabo inaan print garayo print menus breakfast haddaan dhahno breakfastigoo listi ayunoo print garaynaya haddaan rabo laakiinse inaan ka ugu horeeya print garay waxaan odhanayaa matalan index baan markaa isticmaalaynaa 0 egg sandwich ayuu markaa inoo print garaynayaa egg sandwich haddayn rabno for loop inay isticmaalana waxaan odhanaynaa for menu comma ama waxaan odhan karnaa for key comma value in menus dot items print
keygii comma formatka isticmaalayna habkan aan isticmaalaynaa kabacdina value marka breakfast iyo listigii lunch listigii dinner listigii habkaasaan isticmaali karnaa. haddana waxaan baranaynaa dictionary ku dhex jira dictionary kale ama nested dictionary. halkan waxaan ku haysanaa markaa laba dictionary ay ku dhex jiraan laba dictionary oo kale. marka keygii 1 waa keygii 2 waa keygii labaad valuegina waa dictionary kale. haddaynu dhahno prince persons waxaa noo soo baxaya dictionary ku dhex jira dictionary kale. haddaan dhaho laakiinse print 1 waxaanu print garaynaynaa first dictionary ama dictionaryga ugu horeeya ayaa noo soo baxaya axmed. haddaan dhahno 2 waxaa noo soo baxaya markaa sahra dictionaryga labaad. haddaynu for loop isticmaalno for key persons dot items haday dhahno markaa print keygii baynu print garaynay. bacdi waxaynu rabnaa haddana dictionarygan labaadna inaynu for loop isticmaalno. waxaan rabnaynaa isagana for marka k iyo ma isticmaali karnaa. hadda waxaan oran karnaa matalan haddaynu key ma isticmaali karno horeanu isticmaalna. haddaynu dhahno key dot v in value dot items marka valuegii saynu hore usoo aragnay waa dictionary kale. isagii baan hadda for loop ku samaynaynaa. ama isticmaalno formattingkii k saanu aragna markaa farqa u dhexeeya waxaan samaynaynaa print maran ayaynu halkaa gelinaynaa. haddaan dhahno run waxaad arkaysaa marka hore waxaanu print garaynay keygii koobaad kabacdi valueskii oo dictionary ayaynu for loop ku samaynay oon mid u print garaynay name axmed age 27 kabacdi haddana second item from the dictionary key values aan haddana for loop ku samaynay. marka nested dictionarygana habkaasaa loo isticmaalaa. okay waxaan isku daynaa marka hadda challenge sidaan hore u baranay intaad joojisaan videoga isku day inaad samaysaan challenge marka create a dictionary to store the names and favorite programming language of 3 individuals using for loop. marka adoo dictionary isticmaalaya 3 jeer inaad qofka weydiisaa inuu geliyo magaciisa iyo favorite programming language-ka. marka waa range aad isticmaali kartaan. marka 3 jeer inaad weydiisaa macluumaadku geliyay marka waa inaad ku save garaysaa dictionaryga. marka keyga wuxuu noqonayaa namekii valuegina wuxuu noqonayaa favorite programming language-ki. kabacdi after storing the information markaad save garayso use another for loop to print out each person's name. qofka magaciisii iyo waxaad print garaynaysaa their favorite programming language adoo for loop labaad isticmaalaya. markaa isku daya inaad samaysaan kabacdina waxaynu arki doonaa solutionka. waxaan rajeynaya inaad ka shaqaysaan. haddana waxaan idin tusi doonaa solutionka. marka ugu horreysa inaan samaysanaa dictionary maran. marka hadaynu bixino favorite language kan waa dictionary maran kabacdi for loopkaan isticmaalaynaa for I in range 3 mar ayaan rabnaa inaynu markaa weydiino. waxaan oran karnaa enter your name. waxaan haddana weydiin karnaa language-ka enter your favorite language kabacdi informationkaas waxaan ku save garaynaynaa dictionary. marka waxaan isticmaalaynaa favorite language dictionary-geeni keyga wuxuu noqonayaa namekii is equal to kabacdi language-kii ayuu noqonaya value. 3 jeer markuu noo macluumaadkii noo soo ururiyo kabacdi for loop isticmaalaynaa. hadaynu dhahno print
favorite language kaas caadi waa print caadiya kabacdi hadda marka for lagu soconaa for then dhahano name comma language waan oran karnaa darramada key value aan isticmaal karnaa usoo aragnay items aan isticmaalna waayo waxaan rabnaa inaan soo qaadano namekii iyo languagekii waxaan karnaynaa marka name colon okay aan test garayno saddex jeer ayuu ku weydiinayaa magac java c sharp tml kabacdi saddexdii buu inoo soo qaaday favorite languages axmed java deeqa c sharp ali html insha allah waxaan rajay inaad ka faa'iidaysateen koorskan waa inoo koorska dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu